baabuur badan iyo bajaajyo ayaa gudbaya waa dariiq laami oo ku yaala bartamaha magaalada Boorama oo isku bedelay dariiq jidcadaaya dhowr bajaaj marka ay gudubto mid ayaa ku shilinsiinaya tani waa warbixinta ka hadlaysa Kowsar Cabdullaahi Aadan oo ah wiil dhalinyaro oo ku nool magaalada Boorama waxa uu buuxiyaa daldaloolka burburka baasan ee soo wajahay jidkani ku yaala halbowlaha magaalada oo marisiisa ay ku dhib qabaan dadka waayeelka iyo gaadiidkuba Kowsar Cabdullaahi Aadan waxa uu nolol maalinimo u arkaa buuxinta jidkani burburay waana shaqo uu soo kollaaw si nolosha maalintaas u noqoto mid hoygii uu saaka ka soo kollaahay uu kula laabto dareenka diwaankii uu saaka qoyskiisa uga soo tagay mararka qaar uu ku hungooba waxana hoygiisa ku laabtaa tiyo saacadii halkan uu taagnaa daal mooyaane uusan dheef kale uu ka helin sidaas oo ay tahay haddana wiilkan uu ku qasban yahay qabashada shaqadani maadaama Kowsar Cabdullaahi Aadan uu yahay xaasla dhalay laba caruur ah aygu Kowsar Cabdullaahi Aadan waxaan ahay wiil dhalinyaro oo gobolka Awdal dhalinyarteeda kamid ah aroortii waan soo kacaa kadibna waxaan qabtaa shaqadayduna waxa weeyaan aanu baas xilqaamay waa gudadka magaranayay la arkay dayactir u baahan dawladna imay dirin shacabna imay dirin aanu baas xilqaamay marka alxamdulillah nolol maalmeedkaygana waan ka helaa maadaama nin xaasleeyahay bajaajleyduna aad bay walaa kuwaasa ayaan ka helaa biyahayga iyo nolol maalmeedkayga hadba intii ilaahay ga siiyo kale tole bulshada badanka dhalinyarada badankaygu way og yihiin anu waxaan ahay nin xaasleeya waxaan leeyahay laba wiil kadibna markaa maadaama amal meel shaqo dawladeed haynin ana amal baan ka dhigtaa nolol maalmeedkaygana waan ku masruufaa marka waa sidaa kale xaalkayga way og yihiin dhalinyarada badankeedu asxaabtaydu alxamdulillah waanan magaranayay wadaya shaqadan imigana waan wadaa muddo intee leeg baad shaqadan wadaa Kowsar waxaan wadaa aduu ilaa iyo 3 sano waan wadaa 3 sano way noqonaysaa marka ma wado kaliya aad ku kooban tahay mise wadooyinka burburo oo dhan ayaad hagaajisaa may wallahi gabi intan magaranayay jarka taa u baxaysa tasheedheer u baxaysa taali balaag u baxaysa ilaa iyo halkan ma u geele marka day suuqii halka burburku halku ka bilaabmay waa inta u daran waa inta sare cali balaag jarka adoo wadooyinka qaybsama xanuurta magaalada raqabku u badan yahay weeyaan wiilkani waxa uu iska indhatiraya caqabadaha dhinacyada badan ee ku gadaaman isagoona ku dhiiranaya inuu hormood u noqdo hawl dad badan ay aaminsan yihiin mid micno badan u sameeyay bulshada balse shaqada noocan oo kala dadka ka shaqeeya dunida waxay ka yihiin kuwa karaama ku dhaxla dadkooga laguna qadariyo shaqadan marka si loo eego waa shaqo adag maxaa ka soo gala wallahi kullu shay aad u baahan tahay laakiin se maadaama dariiq tahay waa sadaqatul jaariya aduu waxaan shaqaysanayaa ajar kamana waayay aad nolol maalmeedkayga hadba intii ilaahay ga siiyo kullu garabna waan u baahanahay dawladda haday tahay iyo haday shacab tahayba waan u baahanahay garab cidii siinaysa darawaliinta moota bajaaj waa kuwa kaliya dhiirigeliya Kowsar Cabdullaahi Aadan waxaana dhankooga wax ka weydiinay shaqada uu qabto wiilkani waxaana ay tilmaameen walaalkeen Kowsar Cabdullaahi Aadan oo u qabta bajaajleyda shaqo aad u wanaagsan u qabta Kowsar waa nin wadaniya oo markaas dalkiisa jecel isla markaasina haya shaqo aad u weyn sababtoo ah Kowsar waxa uu buuxiyaa wadooyinka meelaha jabay ayuu buuxiyaa isla markaana wuxuu ku shaqeeyaa Kowsar Cabdullaahi Aadan si tabaruc ayuu ku shaqeeyaa cid markaas wax ma jirto kaliya wuxuu ku shaqeeyaa si tabaruc iyo ilaahay dartiisa ku shaqeeyaa waxa leenahay markaas Kowsar shaqada uu hayo waxaan ka codsanay dhammaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo qaybaha kala duwan ee markaas qaybaha kala duwan ee dawladdeena Soomaaliland waxaan ka codsanayaa inay markaas taageeraan oo markaas aad u taageeraan Kowsar Cabdullaahi Aadan shaqada wanaagsan ee uu hayo la taageero bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore TV-ga Star TV aad buu mahadsan yahay marlabaadka hadii aan ka hadlo wiilkan muwaadinka shaqadii ee dawladda hoose ay qabtay isagu muwaadinimo wadadii googonayd uga shaqeynaya ee u buuxinaya waxaan leenahay haddaan nahay dhalinyarta bajaajleyda gobolka Awdal ee Boorama
markaa waxaan leenahay dowladda hoose wiilka muwaadinka ee waddadii iyagu xaq ay u lahaayeen inay ka shaqeeyaan ee cashuurta nagaga qaadayeen ee lacagta nagaga qaadayeen oo ka shaqaynayo oo buuxinayo oo hagaajinayo waxaan leeyahay markaa dowladda hoose ninkaa gacan qabato ha dhiiri geliso mataqaanaa waddi waa muwaadin ninka muwaadinkaa ee dadkiisa jecel ee wax qabanaya waa la dhiiri geliyaa oo waa la kabaa ama hadday dhaqaal noqoto haddii dhiirigelin noqoto motivation loo sameeya leenahay markaa wiilkaasna wallaahi waa wiil aad u fiican muddo badan buu ayuu hayaa shaqadaa moogtay markaa waxaan leenahay isagana dadaalka halkaa ka sii wad baan leenahay halkaa iyo halka saraysan oo ku rajaynaya Koosaar wuxuu ka shaqeeyaa waddada muddo 2 sano ah muddadaa 2 sano ah wuxuu ku buuxiyaa waa ciid shaqadaasi waa shaqadii dawladda hoose lahayd waxa ay dawladda hoose xaq u lahayd inay u dhiibaan daamur maalinba xabadda go'da ama meesha yaree go'da aw ku buuxiyo ka kabyar oo ku buuxiyo inay u dhiibto xaqba u lahayd hadday u dhiibi lahaayeen maalinba xabadda yar meesha yaree go'da inta yaree daamure ee uu ku buuxinayo waddada gebigeeda ma googo'deen wixii go'ana isaga ayaa buuxin lahaa sidaasayna u dhisnaan lahayd muddadaa 2 sano ah ee uu inankaasi ka shaqeeya waddada wuxuu ku buuxiyaa waa ciid weeyaan weli maayarka ama dawlad hoose cid iska xil saartay ama aragtay ama eegtay lagama hayo Boorama weli hoose magaalada Boorama oo ah goobta u xil saaran inay ka shaqeyso bilicda iyo hagaajinta wadooyinka muhiimka ayaa gabi ahaanba sanadihii u dambeeyay waxa indhaha ay ka laabatay ka shaqeynta danta guud taasina waxay keentay in indhaha mar walba qabtaan burburka iyo waxyaabo kale oo indhaha u wanaagsanayn si kastaba ahaatee ilaa iyo hadda lama garanayo xilliga maamulka dowladda hoose magaalada Boorama uu fahmi doono muhiimadda ay leeyihiin wadooyinka iyo ka warhayntooda وعمران حسين آدن ورارك مقبايا تلفزيون كعالمي Star TV Boorama.